وإلهي وحينا لي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عربت وحي شيغان habar mooyine waa leediyeen wuxuu dhinmeene habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay xadkay soo hijirtay gelinka dambana shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto marka maalin walba waa shaqo joogta ah gelinka horena waa tidcda gelinka dambana waa maxay waa furfurta ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takuunu هل من نقرننا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تي قالين كي هورت تدعضية تشي قالين كي دمنا فرفرطي تاكو بيرنا بإلهينا ليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة تكبر بأعمال صالحة سماية دبتنا استصئي اسم قشي معاصي كبائر كبرية قاربا وضد الصحة هيا كدي من الرات كودي دبو راعونا منافق نما يرد كلها والعياذ بالله. waxay isweydiinta leh toosnaantu waa waxadag waliba daa'irteenina dhibaaba haysataa intay dhowr iyo 10 jir ka yariina qadaadkeenu haynaa quraanka qayb malcaamada tag quraanka qayb baynu ku wadnaa dhowr iyo 10 jir markuu gaadhana masaajidka ma uu baalmara quraan qaybisiyo baabka iska dahay hadduu qaybayna waa ilaaba haddaanu qaybinaa walba waxba kama qaybin uu dhinac mara xaggay beledu ka taagantay marka nabi maxamed baa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doonta waqti yusbixu arajulu mu'mina ninku ay dhici doonto inuu waa bariisto isagoo mu'mina wayumsi kaafira uu galabaysan doono isagoo kaafira galinka hore waa mu'min galinka dambana waa gaal cajab galinka hore waa mu'min oo ama salaad buu tukaday ama galinka dambana acmaal lagu gaaloobayo wadaa yani toosnaan dadkani ma laha wayusbixu kaafiran wayumsi mu'mina waa barisanaya isagoo gaal haddana yani waa maxay islaamnimadaanu ku qumanaanaynin gaalnimadii iyo islaamnimadii buu dhex socdaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya maxaa ku kalifay diintiisa ku gadanaya in yaro adduunyo abuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam diintiisii ayuu ku gadanayaa maxay adduun yar idan waryaadheen toosnaanta wax fudud maaha inaad naftaada iyo shaydaan iyo jin iyo insiba dagaal la gashaa haddana aada warmooga tahay wax fudud maaha ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qaar culamo ahaa culamo waaweyn oo ka siibtay ilaahay kitaabkiisii watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaan fakana min alghaawiin baa ilahay yidhi waxaa dadka ku akhridaa xasuusisaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu siinay aayaadka iyaga baa ilaahay leeyihi culamada barh baa yidhaahdaa nin mustajaabu dacwo abuu xataa ahaan jiri ismullahi lacdam ku yaqaanay bay qaar sheegaan wax kasta haato waa nin ilaahay aayaadkiisii la siiyey wax garanayey isagoo wax garanaya ilaahay muu odhan wuu noqday waxaa la yidhi fansalakh waa ka siibtay kaanamaa haragga neefka marka haragga laga saarayo soo lagama siibo kaanamaa war kitaabkuna leeyahy war soo joog isna uu maxay ka muruxsanayo faatbacahu shaytaan baa ilaahay yidhi shaytaan baa raacay isagii baaba macallin noqdo shaytaan ku daba socda fakana min alghaawiin idan ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam duul buu tilmaamay intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlu jannaha siday u wadaan marka dambun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono haddaba ayuha alaxiba qof kastoo mu'mina oo dunida jooga umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jeceliyay isla markaa qof waliba wuxuu jeceliyay camalkiisu inuu maxay waxaanuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluh xadiiska tirmidi sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado
haddaba ayuha alxiba garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban, garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto, laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid, lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde, lacalla. mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu konton idinka idinla mida la ajar yahay baa la yidhi. baahanta ilahina qur-aanka wuxuu inagu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh, waryaadheen xagga rabbi u toosnaada. faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh, wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista. qur-aanka laba meelood oo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi, dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyahy. kuwaas malaa'ig baa ilaahay kusoo dejinaya, malaa'ikatu raxma, oo maxay leeyihin marka nafta laga qabanayo laba shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxaya warwar ku haya. meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa, oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon. ilaa adduunku isku dhamma ma lehe, maraad sileeday shaqadii waa dhamaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto. mar kasta oo wuxuubaad sileeday war waxbaa dayacane, talow siday noqon kuwani. waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran, war talow maxaa kaa horeeya, war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbala, war ma kuwa naartaad noqon mise kuwa jannadaad noqon, xaalkaas siduu noqon. warwar baa kugu jira. ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa u bushaaraynaysa. maxaa loogu bushaaraynaya? anlaa takhaafuu walaa taxzanuu, ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina baa laleeyahy. kuwa nabadgala ka midti, ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa la ydhahaa. rabbigood bay leeyihi waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta. fii suurati alaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyahy ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay yidhi. cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan, walaa hum yaxzanuun, murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegay ka murugoon maayaan. ulaaئika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaa bima kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi. kuwaasi waa reer janno, waana ku waarayaan iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal fameeyeen daraaddeed sababtii. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo. adduunka ilahay wuxuu ina leeyay waan low istaqaamuu calى اطariiqati laasqaynaahum maءa gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluka cadaaban sacada. hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi, hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay. roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay, toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyahy waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhargi lahayde. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan ya haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih, isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda. marka dhibtu ku qabsato yaa rabbidaa badata, dheragta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaan, imtixaanka dheragta khatarsan. imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma, iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma. soomaalidana waa taqaaneenoo
xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen, ya allah bay odhan jireen. marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen. ilahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu. haddaba ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya laba aayadood oo kale, fastaqim kamaa umirta. fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi, wastaqim kamaa umirtana fii suurati shuuraa bay ku jirta. fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yihi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow. u toosnow sidii rabbi ku amray. hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy. suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiya soo qabsaday baa ilaahay ka warramay. nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi saalix, nabiyullaahi shucayb, nabiyullaahi luut, nabiyullaahi muusa. waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya. nabiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday. markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey. nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir. u toosnow baa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray adiga iyo inta kula socotee ilaahay u toobad keentayba. nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib. wakti ciro anigoo aan gaadhin, timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaalay, laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed. wa fii bacdi riwaayaatna wa akhawaatuha min almufasal. qur-aanka hoose riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa shayabatnii huud wاlwaaqicatu wاlmursalaat wacama yatasaa'aluuna waida shamsi kuwirat. kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. qur-aanka uu sheegayaa qiyaamo iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka waramayo. waxa dambeeya aakhiro dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan, shayban inay noqonayaan. haddaba kuma qofka la leeyahay toosnow, man huwa? inahu aclamu lkhalqi biاllah. waa dadkaba ninkii rabbi u yaqaanay ee ugu cabsi badna ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxay? toosnow. wastaqim kamaa umirt walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bima anzla allahu min kitaab waumirtu liyacdila baynakum allahu rabbuna warabukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum allahu yajmacu baynana wa ilayhi lmasiir. waxay culamadu yidhahan waa 10 jumladood oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu amrayo. ayuha alaxiba, toosnida iyo qumanidu jawaamic alkalimka nebi maxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam. ilaahay nebi maxamed wuxuu siiyey jawaamic alkalim. jawaamic alkalimka waa maxay? erayo kooban ayuu macno ballaadhan ku sheegaa. sidan casrigan dadku khudbadaynayaan hadalka badan akrinayaan nebi maxamed ma ahayn calayhi salaatu wasalaam. war kooban oo dadkuba intuu qaybo xambaari karo laakiin macnahoo dhan sida buu sheegi jiray. waraadu kooban. nin baa u yimi sufyaan ibnu cabdal athaqafi, saxaabi la odhan jiray. dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada bacdak. ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada war iga sheeg aanan qof dambe weydiinin. wa fii riwaaya hayrak, islaamnimada wax iga sheeg igu filaata waanan cid dambe warkiisa u baahanin. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa su-aal adag. intuu qof kuu yimaado ku yidhaahdo diinta wariga si aanan wax dambena cid weydiinin, in igu filaato u maanta ii sheeg haddii lagu yidhaahdo meelaad kaba baadi doonto garan maysid. laakiin nebi maxamed maadaama ilaahay jawaamiculkalim siiyey
wuxuu sheegay erayo kooban oo ninkaasi wuxuu doonayay oo dhan xambaara. wuxuu ku yidhi qul aamantu billaahi uma istaqim buu nabigu ku yidhi, waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey kuna toosna warkaa marka. intaa un buu nabigu sheegay. soo ma rabtid war inaan ku faro islaamnimada aanad cid dambeba wax weydiinin, warkaasi wuxuu yahay buu nabigu yihi qul aamantu billaah, dheh ilaahay baan rumeeyey, kadibna ku toosnow, ku qumanow, warkaasi raac. karaamada ugu weyn dadka barh baa waxay dadku had iyo goor awliyada iyo waxa marka waramayaan, ninkii ducaal alla ka aqbalo waxay yidhahdeen waa weli, karaamo hebel baa ka dhacday. karaamo waxa u weyn in ilaahay kugu karaameeyo inaad toosnaato. acdam karaama waa luzuum alistiqaama. awliyanimadaada ugu fiican ee ilaahay uu ku siiyaa waa inuu ruux quman kaa dhigo, ruuxaan weecweecsanayn oo wadada kolba ka baxayn. afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo inala hadlayo o inoo talinaya, xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimuu walan tuxsuu, toosnaada mana dhammaynaysaan buu nabigu leeyahy. yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan, laakiin toosnaada. waaclamuu waxaa ogaataan ana khayra acmaalikum asalaa, acmaashiina waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid salaad baa ugu fiican buu nabigu leeyahy. hadday salaadi kaa dayacanto, diini kaa dayacantay ogsanow, istiqaamo waad ka fog tahay. hadday salaadiba kaa dayacanto, istiqaamo iyo adiga in dheer baa idin dhexaysa. aayaadkii uu nabigu lahaa, suuradduu lahaa way gaboojisaynaa. waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mid a ilaahay subxaanah wa tacaala fastaqim kamaa umirta waman taaba ma maxaa ku jiray waaqim الsalaata طarafay الnahaari wazulufa min alleyl ayaa ka mid ahay. waxaa samaysaan salaad baa u fiican baa rabbi ayuu nabigu leeyahy. walaa yuxaafidu cala alwuduu'i ilaa mu'min, weysana ma dhowrto ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane. yacni islaamnimada waxyaabaha ugu fiican waxaa ka mid ah inaan weysadu kaa jabin. hadday kaa jabto inaad dib u weysaysato, musqulba haddaad weysaysato, musqulba haddaad gashay inaad soo weysaysato, inaad daahir ahaataa. haddaba nebigu wuxuu inoo tilmaamayaa istaqiimuu walan tuxsuu, toosnaada mana dhammaynaysaan. xadiid labaadoo bukhaari iyo muslim uu ku yaala wuxuu nabigu yihi sadiduu waqaaribuu waabshiruu. sadiduu, asadaad waa toosnaanta lafteedii ama isaabada. waqaaribuuna almuqaaraba alqasd. maala marka aada dhugtamayso, dhugtanka soo ma taqaanin, rasaas ama waran marka wax la wada liishaamayo la dhugtamayo, maxaynu samaynaa? meel baa calaamad yar laynoo dhigaa ama waxbaa la dhigaa, dadkao dhan wuu toogtaa. laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda santarkaa qof iyo labunbay ugu dhacaysaa. haddayga xataa kuugu dhacdo ka labaad waxa laga yaaba inaad dhinaciisa ku dhufato. nebigu wuxuu ina leeyahy war waxaa samaysaan dhugtankaasi sadidu, marka hore ku day inaad halka toosan la heshid, dee xaggaa ha isaga tuurin waranka, ee meeshii lagu dhugtamaye la eego, ku dhaweena. xataa haddaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ha ku dhacdo. haddaa sidaa yeeshaan buu nabigu yihi dee bushaaraystana. markaasuu nabigu wuxuu leeyahy waclamuu anahu lan yudkhila aljannata axada camaluhu. ogaadana nina camalkiisu inaanu janno geynin. yacni jannada ilaahay waa ka qaalisantay waxoogaa ka yaraynu samayno. jannada ilaahay waa ka weynta. addunyaa wacasharatu amhaaliha, jahanamiyiin kuwa ugu dambeeya ee janno soo gala ayaa waxay leeyihiin maxay? adduunka iyo 10 laabkii. xagga hore raggii ka galay markaa maxay leeyihin? acmaashaad shaqaysayna waa maxay? 60 sano 50 sano aad waxoogaa wadwaday. idan wax gooye maaha, laakiin sabab bay u noqotaa.
saxaabadu markay yidhaahdeen walaa anta ya rasuul allah, oo xataa adigu camalkaaguna miyaanu janno goonin? qaala walaa ana, buu nabigu yidhi, ila an yatagamadanii allahu bimakfirati waraxma, ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo oo dembigayga dhaafo mooyaane anigana ma xataa camalkaygu ma gooyo. waclamuu ana axabu alacmaal ila allahi adwamuhu wain qal, laakiin waxay ogsoonaataan buu nabigu yidhi, ilaahay agtiisa camal waxaa loogu jeceliyey kuwa la joogteeyo, istimraariyada, istiqaamada, habaadka, wixii ku sugma ayaa ilaahay agtiisa loogu jeceliyay, haba yaraadee acmaashaadu inay joogta noqoto. idan ayuha alaxiba, waxaa laynaga rabaa alsadaad walmuqaaraba, inaynu isku dayno inaynu barta asiibi karno, inaynu ku biro ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wakunuu maca asaadiqiin, ilaahay ka cabsada oo inta runta sheegaysa sidiiqiinta macooda ahaada. inaynu ku biro min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. mu'miniinta waxaa ka mida baa ilaahay yihi kuwa rumeeyey waxay ilaahay ballan la galeen oo ku dhintay, iyo kuwo jidkii hayo waan waxba bedelin. ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa falow sadaquu llaha lakaana khayra lahum, hadday dadku run sheegaan iyadaa u khayr badnaan lahay. ka run sheegaan waxay samaynayaan, lain sadaqta allaha haddaad ilaahay u run sheegto ilahayna waa kuu run sheegayaa baa la yidhi. ilaahay ballankiisa haddaa oofisaan isna ballankiina waa idiin oofinaya. ayuha alaxiba, istiqaamadu waa dadaal, laakiin ko waxay layna yidhi fastaqim kamaa umirt, sidii laguu faray. waxay culammadu yidhaahdaan markaa walaa tattabic ahwaa'ahum baa aayadda kalena ilaahay leeyay. macnaheedu waa maxay? istiqaamadu waa itibaace, ibtidaac maaha. toosnowdu waxaa lagu toosnaadaa wixii rabbi ku faray, oo waxa rabbi ku faray waa maxay? diintaa laga raadiyaa. hays odhanin toosno waa bidac iyo wax cusub ha samaysanino, hays odhanin camalka biiri. war intii nebi maxamed samayn jiray kama badin kartid. miyuu inagu jiraa cid nebi maxamed ka badin kartaa? may. idan intiisii baanad gaadhi karin, maxaad in kale raadcay? dadka barbaa ama bidaca qaar ba xasana, qaar ba sayi. bal horta ha inooga dambayso xasane iyo sayi-adeedube, kollayba tii nebi maxamed soo kama fadli badna, tiina ma dhammayn karayno. saa daraaddeed bal markaa taa soo dhammayso aan baabka kale isweydiino. markaa taa soo dhammayso aan baabka kale u nimaadnayo su-aashiisa. 3 saxaabi walaa tatqaw baa ilahay yihi, ha xodgudbinina. istiqaamada markaaynu rabnaa tacaabiirta iyo iminka isticmaalaan wasatiyay sheegaan, iyo kan wasatiyadiiyo waxaa la sheegaya o dham waa istiqaamada. oo waa maxay? waa walaa tatqaw walaa tattabic ahwaahum, taa labada aayadood ku jirta weeyaan. ha xadgudbin. ha xadgudbin marka layna yidhi maxaa loo jeedaa? 3 saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey, markaasay waraysteen maxaa camal uu nebigu qaban jiray. markaasaa loo sheegay, waabay la yaraatay intii nebi maxamed. haddana si kale ay u fakereen oo waxay yidhaahdeen, war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambeba dhaafay, isagu daa walba dembi ma lahayn. inagu dee waa dambaabnaaye, mar haddaynu dambaabno waa logic ba la cayaarayaa. mar haddaynu dambaabno dee intii nebi maxamed waa inaynu ka badinaa. isagu ma dambaabin, intaana uu sameeyey. haddaba inaga dambaa inoo dheere, inagu waa inaynu ka badinaa maxay? intii uu samayn jiray. oo maxaynu samayn? mid baa dabeete wuxuu yidhi, isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay, inaga waxba garan mayne, anigu habeenba seexan maayo, waan taagnaanun buu yidhi, salaad un baan ku jiri. kii kale wuxuu yidhi, aniguna cunaba waan iska dhaaf, waan soomanaan, soonun baan wadi. midi salaadun baan wadi buu leeyahy. midina wuxuu leeyahy maxay? soonun baan wadi. midina wuxuu yidhi, war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxaa diintaba dadka ka mashquuliye, guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yidhi, zaahid baan iska noqon, haweenintu ka dheeraado, cibaado unu babaxa weeyaan. dabeetana nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. nebigu nimankiiba u yeedhay, wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada, war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay? ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi? haabay yidhahdeen. wuxuu ku yihi markaa, ama wallah inii la akhshaakum lilahi wa atqaakum lah.
ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan idinkuna taqwo badan. alkhashya iyo wataqwa, anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan, naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy. riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallahi inii la aclamukum billaahi, anaa alla idinku cilmi badan wa atqaakum lahu qalba. idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen, ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay, laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau, alle wuxuunbaaba cabsida dhabta ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh. dee nin ilaahay garanayunbaa ilaahay ka baqa, nimaan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayni ama se ogeyni dee ma cabsado. laakiin ninka rabbi og iyo awoodiisa wuu cabsan. saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan, idinku khashyo badan, idinku cabsi badan, idinku dhowrsanaan badan. haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa, waan seexdaa waanan tukadaa, dumarkana waan guursadaa, war ninkii jidkayga ka weecdow anigaygama mid tihid buu nebigu leeyay. faman ragiba can sunnatii falaysa minii, aniga wadadaydii ma haysid weeyaan. xadiidkan maxaan u keenay? waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno inu isnahda cibaadada badi, cibaadada badi, laakiin ariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi. dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay, dadka badhna cagsigay ku dhacaan. dadka badhba haddaad tidhahda war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay, in sha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim. waxay u badantay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay leen garantii buu iska sitaa ah inaanu soo cadaab galaynin, inagu leen muslim baynu nahay. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramay qisas tiro badan. yahuud baa ilaahay ka warramay waqatacnaahum umama minhum asaalixuun wa minhum, waa qaybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoyna dhulka lagu firdhiyey. laakiin waxaa ka mida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina. laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yuhuudda noocii dambe. maxaa ilaahay yuhuud inoogaga warramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya? waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho eh inay tahay acmaal. annagaa ah abnaaullahi wa axibbaau bay sheegteen, annagaa 40 casho qurunbaaba nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen. sheegasho inaanu arrinku ahayn. qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yuhuudeed haddii dee abtirsiin tahay, haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin. waa ilmo nebi israa'iil. nebi israiil waa nebi yacquub, nebi yacquubna waa ayo wayna nebi isxaaq, nebi isxaaqna waa ayo wayna nebi ibraahim. 3 nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga. carabi 2 nebi bay ku abtirsataa soo maaha, nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim. iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay? 3 nebi. haddii markaa nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay, yuhuud baa ku guulaysan lahayd. laakiin ilaahay wuxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun, kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yidhi. khalfun, duul xun baa gadaal maray. duulkan maxaa lagu ceebaynaya? ilaahay wuxuu yihi warisu lkitaaba, kitaabka way dhaxleen. kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helay weligeedba waa kala nooc. saxaabadu diinta maxay ku heleen? naf iyo dhiig bay ku heleen, naf iyo maalba bay u bixiyeen. iyagoo taagan baa raggoodii waaweynaa u dhintay, loo wada dhaawacmay, hantidoodii ku lumiyeen, way ku mintideen markaa. laakiin dadkii dhaxalka ku helay, aabayaasheen baynu ka dhaxalnay inagu soo maha, walaa dhiig baynan ku helin, walaa xoolaan inaga bixin, walaa xawtoona. waxaa ilaahay inugu manaystay aabba iyo hooyo muslimiin ayna dhalaan oo qur-aan laysaga keendiro, dhul muslimaad ku dhasho, dhaxal baad ku hesho. ilaahay qoladan wuxuu yihi kuwii hore qaar baa ka dambeeyey kitaabka dhaxal ku helay. dhaqankoodna maxay yahay? ya'khuduuna carada hada aladnaa baa ilaha yidhi. dunidan liidata wixii uga yimaada wa iska qaataan.
wayaquuluun waxaanay leeyihin xaraan iyo xalaal ma kala yaqaanin baa la yidhi haddana waxay leeyihiin sayukfaru lana waa naloo dembi dhaafi